maalin wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kasta joogtaan ku soo dhow kanaalkeena youtube-ka Ali S online oo idiin soo diyaariyay anigoo ah cali maxamed ismaan cali baashi. okay ka hor intaana videogan maanta gudagalin, haddii aad ku cusubtahay kanaalkeena youtube-ka Ali S online, fadlan soo dhowow, inagu taageer, like, subscribe iyo share. intaba waxay noo tahay runtii dhiirigelin. sidoo kale waxaa aad iyo aad ugu mahadcelinaya walaalaha ku taxan oo had iyo jeer kommentiyada quruxda badan iyo maaragtay like-ta, share-ta, engagement-iga wanaagsan aad sameynaysiin aad ayay maaragtay dhiirigelin noogu tahay. kanaalkan had iyo jeer waxaa soo dhignaa videoyaal dhiirigelin, videoyaal lagu baranayo markaas teknolojiyadda iyo videoyaasha ama su-aalaha aan naga soo dalbataan in aan ka soo sameyno video. aad ayay ugu mahadsantihiin. videogeena maanta ama cashirkeena maanta ha inoo bilowdo. insha allah videogeena maanta waxaa kusoo qaadan doonaa 3 formel oo aad iyo aad muhiim u ah oo ka mid ah boqolaalada formel ee ku jira Excel. okay waxaa ogsoonahay formelada ku jira Excel lama soo koobi karo, way fara badan yihiin sida financial, logic, text, data, math, waxyaabo badan aan la soo koobi karin ay ku jiro. mid kastana qaanad kastana waxaa kusii hoos jira boqolaalo kale oo formel ah. okay laakiin intooda soo qaadan doona sidaa sheegnay 3 formel oo muhiim ayaa soo qaadan doonaa. waxaan ku isticmaali doonaa qoraaladan inaan wax ugu bedelno. okay hadda waxaan u jeednaa meeshaan qoraal isku dhex yaacsan oo xarfaha waaweyn iyo yaryar ee maaragtay isku dhex yaacsan yihiin. qof aan Excelka si fiican u qoon ayaa soo qoraal loo diray. sidan ayuu marka soo qoray. marka waxaan isku dayi doonaa inaan saxno oo qurxino qoraalkan meeshan ku qoran, ha ahaado table ama list, magacyo, fasal, iyo waxay u muuqataa inay arday yihiin, magacyadooda, fasalkay dhigtaan iyo maadooyinka. waxaan isku dayi doonaa inaan 3 formel isticmaalno anagoo markaas isku dayi doona inaan saxno tablekan ama listigan. okay ugu horeyn waxaan rabnaa inaan saxno ardaydan magacyadooda. waxaa ujeednaa Ali, xarfi yaryar ay u qoran yihiin, Maxamed, Xirsi, waxaas oo dhan waa isku dhex yaacsan yihiin. marka waxaan rabaa formelka koowaad waa proper. safka aad rabta in aad saxdo, safka ku xiga dhinaca midig, tusaale ahaan xarfahan aan rabo inaan saxo, sadarka ku xiga ama columnka ku xiga ayaa tagayaa, waa calaamadeysanayaa, kadib waxaa tagana insert. waxaa liisiiyey column kale oo dheeri ah. columnkaas dheeri waxaa u sameeyey in aan maaragtay ku saxo columnkan kale oo iga qalda. markaas maadaama hadda aan u jeedno farta godka ma ku filna, si uu la ekeysiino waa inaan jiidnaa dhinaca midig. okay hadda way soo wada galeen cells, godadka way soo wada galeen. marka waxaan rabnaa in magacyada ay u qornaadaan sida caadiga, si caadi. maadaama aan rabno in qorno, waxaa isticmaalinaa formelka proper. waa formelka koowaad oo aan soo qaadan doono maanta. tusaale ahaan godka ku aadan ereyda ay rabto inaad saxdo ayaa tegeysaa, kadib waxaa ku qoreysaa equal proper. marka bilowdeed hoos ayaa lagaa siinaya, falaarta ku qaado, maaragtay muuska ku aadi ama tab waa taaban kartaa intooda, midkaa rabtaa geenaysaa. kadib waxaa lagu leeyahay u fiirso text dooro. textiga inuu bracketka ku dhex jira ayaa u baahan tahay. textiga godkan ayuu ku jiraa. click markaas iyo waa C10 ama C10. okay hadda parents inaa xiro ayaa laga baahan yahay, laakiin anoo xirin okay waa taaban karaa. okay ayaa taabtay. oo fiirso cali waxaa loo qoray sida saxda oo proper. alright listiga sidan wuu kasii dheeraan karaa, hoos ilaa boqolaalo ayuu gaari karaa. marka waxaan rabnaa inaan maragtay kulligooda wada saxno. waxaa tegaynaa marka qaybta midigta hoose, fill handle ayaa calaamada pluska madow ayaa noqotay. markaa kasoo laaxdana gacan ayaa noqonaysaa plus oo cadaan. markay gacanta tahay godkoo dhan ayaa qaadi kartaa wax ku jiro, laakiin markay madowga tahay ayaa rabnaa. kadib hoos ayaa u jiidanaa. okay ilaa meesha rabno markaa gaarna waa sii deynaynaa. haddii aad control Z taabto, si kale waa samayn karaa. godkaas fill handleka ayaa loo mar kili ku siinaa. okay kadibna way maaragtay xarfihii ama magacyadii waa la saxay oo xarafka ugu horeeya kasta waa la weynayay. sidaasna waa proper. godka soo u ekaado laba mar ayaa columnka E iyo D dhexdooda, markay falaarta 2 af yeelato double click ku siinayna. okay hadda markan waxaan rabaa magacyadan inaan meesha ka saaro oo magacyadan ku bedelo. hadda copy haddaa dhaho
ama aan isku dayo inaan magacyadan tirtiro si aan kuwan u isticmaalo, waxaa ii imaan doona cilad oo fiirso delete hadaa taabto wixii dhan waa israaceen. Control Z back ida. Marka waxaan rabaa inaan wada calaamadeeyo kuwan aan rabo inaan booska ku bedelo. Booskan ayaa raba inaan keeno. Farta midig ayaa ku dhufanaya ama home ayaa tegaysaa, copy ayaa taabanaysaa. Kadib meesha rabta inaad keento ayaa calaamadeynaysaa. kadib waxaad taabanaysaa farta midig, paste special, kadib waxaad taabanaysaa values. Okay, waa lii keenay markaan godka dhinacan ayaa la keenay. Wixii inta ku qornaa oo dhan inta walka haddii ahaan lahaayeen boqolaalo ama 1000 qof ama 1000 qofood magacyadooda, sidaas ayaa martay hal mar ku bedeli kartaa. Okay, kan marka waa calaamadeynayna ama columnkaas oo dhan ayaa calaamadeynayna. kadib waxaad taabanaynaa hide waa dhihi karnaa, laakiin delete naga leh asigoo dhan waa tirtirna. sidaas ayay maaragtay ku baxeen. Formalkaasna wuxuu ahaa proper. inta ay qorinaa waa kii koowaad. Okay, kan labaad waxaa waaye lower. kan saddexaadna waa upper. aan ku horeyno marka hore upper. waxaan rabnaa inaan maadooyinkan aan ka dhigno xarfo waaweyn. safkan oo dhan waxaan rabnaa inaan ka dhigno xarfo waaweyn. waxaan qoraynaa godka dhinaca midig ka xiga ayaa wax ku qoraynaa maadaama uu waxba ku jirin. haddii ay wax ka qornaan lahayn waa in saf cusub soo gelin noqon lahayd. Okay, equal ayaa qoraynaa. markaa qorno kadib waxaan qoraynaa upper. xarfaha upper ka dhig. waxaa lagu lahaa text sida hore, text ayaa dooranaysaa. kadib enter ayaa taabanaysaa. ujeedaa maadada xarfihii oo dhan waa lagu weynaya. kadib double click ayaa ku siinaa fill handle-ka. wixii oo dhan waa lagu weynaya. Okay, sida kii hore oo kale waa wada calaamadeynayna. right click, copy, meesha rabta keenso, wada calaamadeyso guduudkaas oo dhan. farta midig ayaa ku wada calaamadeynaysaa. kadib waxaad taabanaysaa paste special values. sidaasna meesha waa lagu keenay. kuwii horena marka waa tagaysaa delete ayaa taabanaysaa. alright, marka waxaa ujeednaa magacyadii waa saxnay. xarfihii maaragtay waxaa ka dhignay proper. kuwa maadooyinkan waxaa ka dhignay upper. haddii aan rabo lower waa ka dhigi karaa maadooyinkan dhan. Okay, waxaa tagayaa equal sidii upper iyo proper oo kale. waxaa qorayaa markaan lower. click ayaa ku siinaa markaa calaamadeeyo. kadib maadada ayaa taabanaya. Okay, oo fiirso wixii oo dhan yar yar ayaa laga dhigay. Okay, marka kii format labaad wuxuu ahaa upper. kan saddexaadna wuxuu noqday lower. Okay, cashirkeena maanta aan ku soo qaadanay saddexdaas formel oo kala ah upper, lower iyo proper. intaas ayaa kusoo koobina insha Allah. intaana ka bixin ka hor marka hore waxaa jeclaan lahaa inaad naqshadan sii tutuusiyo maadaama ciwaanka oo kale waa wada calaamadeysanaysaa. waxaad tegaysaa marka qaybtan oo maaragtay farta kalaradeeda ka dooran karto. mid kaarta ay dooranaysaa. haddii aad rabto waxaa sii samayn kartaa geeskaas sare ayaa wada calaamadeynaysaa qaybtaas u sareysa. kadib waxaad tegaysaa backgroundka meesha laga bedelo fill white. wixii o dhan wada caddeynay. qaybtan sare sidii markii hore ayaa ku laabanaynaa. unseen to one. borderka sidii hore ku cesho. Okay, videogeena maanta aan kusoo qaadanay saddexda formel proper, upper iyo lower. intaas ayaa kusoo koobina insha Allah. haddii aad videogan ka faa'iiday waxaa jeclaan lahaa inaad nagu taageerto subscribe, like-tan inaad saarto, asxaabtana aad naga gaarsiiso si ay kan ugu faa'iidaystaan. waana mahadsantihiin. waxaa inoo balan insha Allah video kale.